بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي عشور يوسف سعيد waxaan rabaa inaan halkan idinku soo gudbiyo shirkii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso kaasoo ay soo abaabuleen ururka khayriga ah ee Raasi Casayr Kulmiye. shirkaas oo ay ka soo qayb galeen bulshada gobolka Gardafuul qaybaheeda kala duwan sida culimada, odayaasha waxgaradka, dhalinyarada, haweenka iyo aqoon-yahanada. waxaan hadaba halkan idinku soo gudbinayaa fiidiyowyadii khudbadihii kala duwanaa ee laga kala jeediyay shirka iyo sawiradii daawasho wacan. taariikhda iyo ajadaha ku dheeraan maayo walaalayaal. waqtigaan ugu talagalay shirku inuu bilowdo waxoogaa dib ka dhacay, waxaana keenaya waqtigoo maqrib ahaa iyo xaafado fogfog taa raalli ka ahaa. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waqtiga qaaliga ah runtii oo aad ku soo bixiseen, ballantiina aad ka soo baxdeen. aad iyo aad baad walaalayaal ugu mahadsantihiin. howlka oo yarna raalli ka ahaada. annagu aan aqoon baan howlka karaynay, marka waxaan moodaynay howlka casriga ah oo waaweyn asagana raalli ka ahaada. ma mudnidin meel ciriira inaan idinku yeero. taa markaan ka gudbo, shirkan waxaa soo qabanqaabiyey ururka magaciisu halkaa ku qoran yahay. horta nin walba sawiro. waxaa la yidhahdaa gruubka Raasi Casayr Kulmiye ee samafalka. marka hore siyaasad shaqa kuma. haddaba gruubkani muxuu yahay? taariikhda waxaa ka soo sheekaysa Dictorisa Shukri Ibrahim Saciid. gruubkan weli organization ma gaarin, weli maxaan ku yidhaahdaa wax kaleeto constitution kaleeto ma gaarin. weli gruub wey, koox wey. kooxdan isaga ah waxaa hogaaminaya gabdhaha innagu aynu dhalay oo jooga dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisa. maxay u sameeyeen? xaggee ku socdaan? maxaa sababay? Dictorisa sidaa ka hadashay. gabdhaheenu maaha gabdha saxaafadda taga, gabdhaheenu maaha gabdha shirarka taga. waxaasoo dhan way neceb yihiin, waynu ku ammaanayihiin. aad iyo aad baynu ugu mahadsan yihiin. laakiin waxa keenay gabdhahan waxay isku xirmeen. gabdho qurbaha jooga iyo gabdhihii dalka joogay baa isku xirmay. waxbaa la isweydiiyey. waxay la yaab leh waxyaalaha meelaha ay iskala xiriireen. waa WhatsApp yar oo aad garanaysaan oo wiil gabadhii sameeyey ayay ilaa 300 oo gabdhood isugu keenay. waxa keenay oo isugu keenay waxa weeye hadal aan murti u bixiyey oo Muuse Xuseen Maandhood shirka ah. wuxuu yiri 60kii baa jira weli ma maqal soo jeeda. ayadana way u gurmadeen wixii tabartooda. waxay yiraahdeen marka deegaanka waa balaaniyay. hawshana inay daahdo oo aanu ka dib dhacno ma rabno. ka horta rag waa inuu la shaqeeyaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. kuwa dibaddu in badan hiil iyo hoo bisla gartaagay. waxaan rabaa inaan xuso ragga gudaha jooga ganacsadana inoo ah, wayaashana ka mid ah Maxamed Samatar runtii oo hiil iyo hoo gabdhahan isla dhinac taagay. aad iyo aad waa mudan yahay in laga sheego. shir in laga sheegaa buu mudan yahay. xog baan haya. halkaa marka laga yimaado waxay yidhahdeen marka maxaa ku xigi kara deegaankii bay haddana kamarad ku eegeen. waxay deegaankii caluulaa wuxuu u yahay عزيمة والجوار بقدمه مرة كان هذا مرة بعد أنا ابنه مرة بعد قلبي أنا ابني مرة كلا أنا ابنه أنت كلا توح حرمته كم تهاي وحي أجين ما قالوا لي كقدفول برجع ما أنت كلا ما دام بعد قال حوجا مرة قاعد كجستين قاعد الله أنا هو هذا يعني شيء دون وحي هذين هي حاجة حابة واتن بريدة واتن مثل واتن ما قال عروة وحرمتي اللي ما هبرشوا وابنين كور تعولي تاكترية علوله أريميس برشلونة وبريء حالا يا طبعا برشلونة وفيعنتها وحوها ونحن ناقصة بيها واسكت الرون تهاي كسوسيل الربانة هاي عافيمات كسية وحصوب أحد الميال إسكبرنان أو أريميه عافيمات كأه أو إسبتال وينادي هذا كان هوش الهجامين أيضا بدأ شو عاملين شباب كم يدور كرنيسان وأمريكا كسلوا بوشي وهل كان لو قلت إنه يدي يوفتي هجامين يسوع وقلب قال لي هو بوتلان أو دن عن لجيه قبل كسر وقتهين وزيرك عافيمادka markaa waxa ka ahaa Saadiq Elow. inkastoo nin wadaad ahaa wuxuu isku dayay inuu yiraahdo halka alaabta lama geyn karo. macquul ma aha. qabka noocan ah oo kan dhigaana Puntland baday ma yaalay marka halka lama geyn karo. laakiin uma suurooyin. gabdhaha haladay gooda dadkood dowlad. khayr Allah siiyo in la sheego waa mudan yihiin. barnaamijkan hadda waa ku jira. qabdhi waxay yiraahdeen okay runta caafimaadka. kuli daba qaayal qalab oo khibrad dheer leh oo
looga kaaftoomi karo hooyada badda soo maraysa oo mararka qaarkood badda dhexdeeda ku dhimanaysa marna halkan ku imaanaysa marna badda iyadoo dhex maraysa ku dhex dhalaysa caloosheeda dhexdeeda oo ilmihii mindhicirada iyo caloosha intay jaraan ku maydayaan sidaa daraaddeed ayaa maxay ahayd loogu baahan yahay dhakhtar gynecologista oo isku furan operationkiisa samaysan karaa computerkiisa saaran kara waxuu kaloo u baahan yahay isbitaalku dhakhtar pediatric ah oo khibrad dheer leh wuuna joogaa doctor Yusuf Muuse Gaabow wuxuu u baahan yahay dhakhtar kaleeto oo asagana dhanka medicine oo dhanka tuberculosis ah wuxuu u baahan yahay nurses wuxuu u baahan yahay shaybaarista wuxuu u baahan yahay blood bank wuxuu u baahan yahay raaji u baahan yahay waxaa loo baahan yahay isbitaalkii in guddi loo diro dhaqaatiir ah oo qalabka noo yaalla siduu yahay soo qiimeeyaan isbitaalka markii la qiimeeyo oo la soo ogaado oo la qalabeeyo waxaa loo baahan yahay isbitaalkii private buu noqonayaa ganacsatadeena loo baahan yahay inay gacanta ku qabtaan oo isbitaalkii maamulaan oo dhaqaatiirta ka shaqaynaysa lacagtooda siiyaan oo isbitaalka daawada u diraan sidaasaa loo baahan yahay waxa weeyaan waxaana uga baahannahay ganacsatada shirkan waxaan u qabanay inaan caawa faa'iido ka helno oo na garab istaagaan ganacsatada iyo waxgaradka ayaan shirkan u qabanay iyo dhallinyaradeenna aqoon-yahanka oo hay-adaha u shaqeeya wadna waxaad garan weydeen hooyadiina waddan meesha inta laga soo qaado boosase la keenayo oo ku dhimanaysa miyaad garan weydeen war maxay waxgaradkeena odayaasha maxay u garan waayeen oo ugu dirnici waayeen dumarkooda iyo carruurtooda ku baaba'aya meesha isbitaal weyn baan leenahay تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان isku kaalmaysta wanaagga iyo khayrka iyo maaragtay isku kaalmaysta hana isku kaalmaysanina dembiga iyo cudwaanka marka walaalaheen waxa ay garteen dee rag baynu nahay oo maynaan garan waayo waxaa loo baahan yahay laakiin haddii iyagu ina baraarujiyeen oo maanta ay ina kiciyeen inaynu ka qayb qaadano oo ayna hawshaa u kacno baa loo baahan yahay khayr allaha siiyo walaalaheen kulankan markii labaad oo anigu aan gruubka raas casayr khayriya markii labaad oo aan kulan ka soo qayb galo weeye mar dhawaydo gabdhuhu khayr allaha siiye ay lacag ay biyadhaan usoo ururiyeen dadkeenii meelaha sooliya ka guuray iyo togdheer ka guuray oo galay meesha abaarta ah ay lacag ay soo ururiyeen khayr allaha siiye ajarkeedana ilahay miisaanka xasanaadka hoos saaree raggii ka qayb galay baan ahaa marka waxaa loo baahan yahay inaynu dee kacno oo gabdhahan walaalaheena hawsha ay wadaan khayr allaha siiyo miisaanka xasanaadkana ilaahay haw saaree aynu ka qayb qaadano oo ragga dee waa la sheegay ragga beesha xuseen talareer waxaa laynaga rabaa inaynu kacno oo aynu wartida la sheegay walaalka cabdina uu sheegayay walaasha ay sheegayeen dadka kama liidano dadka innagaa ugu khiyaarsan waxaa laga yaabaa keenna meel jooga inuu meeshaa hogaamiye ka yahay oo isaga lagu xisaabtamo oo isaga loo yeedho oo isaga maaragtay uu meesha ka yahay hormuud ka yahay waktigu uu yar yahay shareecadeenuna dee aad dadka la badbaadinayo kiisas badan haddeer ma rabo inaan galo kiisas badan oo ka dhacay baan ogahay oo xagga gardafuurinta laga soo qaaday boosaaso loo soo qaaday oo ka dhacay kiisaska ama ay dhibaato ku qabsatay waddada ama ay hawlo badan ka dhaceen ama dhibaatooyinka dee haddeer la sheegaya waa wax jira oo aan ogahay oo aan maaragtay u dhuun daloolo aan wax badan ka ogahay deegaanka xiriir badan baan leeyahay aad baan ugu warhayaa marka waxaa loo baahan yahay inaynu meesha ka kacno macnaha dad islaamaynu nahay waxaynu garan weynay garteen waxaan intaa markaa ka gudbo waxaa idin sheegaan caawa halkan idinka sheegayaa waxa weeyaan gobolka bari way boosaaso u ahayd magaalo madax waxaa la oran jiray gaariwaag gaariwaagii waxaa shirkan caawa isku yimid ay soo qaban qaadiyeen gruubka caseer caseer kulmiye aad baan waxmariyeenayaa caseer kulmiye fikratan hadda ay wataan hadda kahor fikrado ay wateen way gabdhaha maatanaanka jira oo markasta ay ku heshiisanayeen inay waddanka maaragtay
ee horumar gaarsiiyaan hase yeeshee waqtiyo badan ka bacdi dibidhac baa ku dhacay dibidhacaas ku dhacana wuxuu ka yimi xagga deegaanka aamina ibn jabaan anigoo is aragnay hawsha waday aan araggii maaragtay alaabta keentay ka qabtaan nahay allah u naxariistay hadda ka hor saydaajo yaasiin waa israacnay aniga iyo koox kale waddankaa tegnay cusbitaalka maanta laga saqarinayo ayaan arrintiisa wadnay waxbaan abaabulnay shaqaalo kooban in loo sameeyo ana hadda waxaan ku jiraa warbixin kooban aan siinayo marka shaqaalo kooban baa loo sameeyey waxaa lagu qaybshay macnaa caluda laba loo kala qaybshay lixiga ka xiga iyo hijana ka xiga labadii bilood oo horeeyey dhinacaas xaa ka xiga dhinaca beriga ayaa loo qaybshay lacagii waa bixiyeen lacagii qaybsi bilihii dambe dhinaciisa kala bixin waayeen hawsha sida ku istaagtay marka haddii la fiiriyo dhaqaale ahaan magaalada xaabo oo kale magaalooyinka ugu dhaqaalaha badan ku jirtaa lacagtiina waa laga waayey bareeda iyo xaga ka xigana lacagti waa bixiyeen taas waxay keenaysaa daktarka waxaa siisaan ilaa 1500 iyo wixii usoo baxaa rag baan kala tashaday waddanku ma laha odayaal iyo khibrad dad wadajiro si urursan wax lala tashado beerdaajahan iyo rag ku jiraan u sheegay arrintaas wax soo qaada waa la waayey qalab shaybaar baa la yidhahda soo gada waa la soo qiimeeyey qalabka shaybaar $1,000 baa lagu soo qiimeeyey warqaddii waa qaadin ada waxay igala wareegay beerdaajaha beerdaajihii waa weydiiyey walaa sugayna banaanka joogta markay soo ogolaadaan waa $1,000 wax ugu filan magaalada hal magaala waa ku filan oo deegaanka ah marka waxa weeye wixii wax badan baa la soo dhigay laakiin waa kushiinaa si fasilkaa laga hortago waxaa rabaa dadka horta inay horta daaco noqdaan dad iyagu markaas ku tashada inay noqdaan dadka ay maaragtay wax ka sugayaanna inay noqdaan dad ay wacyigeliyeen oo maaragtay arrimahan maaragtay waxaan dareemi kara maaragtay iyo inay leeyihiin guddiyo waxaa loola maaragtay waysan karaa hadda $1,000 hadduu beerdaajo dhammaan hooyooyinka dhalinyarada iyo dhammaan marka sharafta kale oo meesha jooga dhan waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantaa kadib walaalayaal haddaan wax yar oo xog ayna ka siiyo waxaa loo aasaasay ururkeennan kulmiye raas casayr oo ah urur samafal ah oo ka madax bannaan wax kasta oo siyaasad dhankeeda ah urur ahna khayri ah oo loo aasaasay in lagu horumariyo deegaanada dhibaatada ka jidha ururkaasoo in badan laga soo baaraandegayay intaan la samaynin ka hor muddo 5 bilood ah kadibna hadda uu samaysan yahay 11 qaateen labadeeda la aasaasay ilaa ay intaa wixii ka dambaysana uu qabtay shaqooyin badan haba ka bilowda shaqada uu qabtay bisha koowaad baahintii yani iyo suu aad u caanbaxay bisha koowaad bay ahayd hawlaha uu qabtay aad bay u fara badan yahay waxaa ka mida koow hawlihii uu qabtay xoogaa waxaa ugu horeysay in la sameeyey gabdhaha walaalaheena oo dhibanayaal ahaa oo laga soo qaaday deegaanka qorraxaad oo maxay ahayd 3 gabdhood ahaayo indhaha wax ka cabanayeen saddexduba in 3 gabdhood ay u ururiyeen xoogay lacag ah lacagtaana ay ku wareejiyeen gruubka kulmiye uu wareejiyey waxaa kaloo ka mid ahayd waxqabadkiisa in uu qabtay abaara wax yar aduu walaalaheena iyagana oo saas oo kale abaara iyo vietnamis ayagana xoogaa yar buu ka geystay oo aan badnayn intaas waa hordhaca ururka iyo waxa loo sameeyey iyo waxyaabaha uu qabtay hadda ajendaha maanta meesha u fadhina haddaan wax ka sheego waa ka taabta waxaa ka mid ah
maanta waxaynu meeshan isugu nimi oo u fadhinaa kow in aanu maxay ahayday maadaama aanu nahay anagu gabdhaha beesha xuseen tarareeb oo ah gabdho aan banaanada badanaa lagu arag inay oo dhammaan hooyooyinkii waanu dhirifsanahay dhammaan hooyooyinkii waanu dhirifsanahay oo dhulkeenna ma booqdo dhakhtarkii wax dhayilahaa dhulkeennu ma booqdo dhakhtarkii wax dhayilahaa oo dhallaankiiyo dumarku dhiig joojin kama helaan iyaalkiiyo dumarku dhiig joojin kama helaan oo dhaqaale ma haysto wiilkeenna dhaawacma dhaqaale ma haysto wiilkeenna dhaawacma ee dhibaatada shacabka maydnaan ka dhiidhiyey dhibaatada shacabka maydnaan ka dhiidhiyey oo dhegxumada adduunka maydnaan ka dhiidhiyey dhegxumada adduunka maydnaan ka dhiidhiyey oo musha dhimanaysa maydnaan ka dhiidhiyey dhaqaalaha dunida waddankeenu oo dhaqaalaha dunida waddankeenu waa dhammays dhaqaalaha dunida waddankeenu waa dhammays oo badii baa dhigan oo khayraadka laga dhuraa oo dhirtiyo dhagaxa ilaa dheeman ooga dhigay dhirtiyo dhagaxa ilaa dheeman ooga dhigay oo dhayda galaxiyo karuurka isdhinac qotoma dhayda galaxiyo karuurka isdhinac qotoma ee dhaqaalaha hura dhulkeenna wada dhisneen dayacay gabdhuhu qabaan inaan nagu daawataanin manoo dambaa tolow makala guuro gacal wada dhashaynu nahaya tolow makala guuro gacal wada dhashaynu nahaya masna makala go'i karoho waan iskarabsanaa masna makala go'i karoho waan iskarabsanaa oo garloo eegaba gobol baynu wada degnaa oo geed kastaad eegto gobol baynu wada degnaa oo anigu garan maayo gudcurka dhexdeenna yaala anigu garan maayo gudcurkan dhexdeenna yaala ee ilaahigay ha ina garansiiyo talada guud war hadalka dayn ma ayno dumarkii haddaanu nahaya hadalka dayn ma ayno dumarkii haddaanu nahaya oo durbaankiiyo sacabku waxaa noo diglaynayaa durbaankiiyo sacabku waxaa noo diglaynayaa oo inaanu suugaanta soho duubni waa danguuda inaanu suugaanta soho duubni waa danguuda oo daalimayno oo waxqabad baanu doonaynaa oo daalimayno oo waxqabad baanu doonaynaa inuu dadka yagu israacaanu doonaynaa inuu dadka yagu israacaanu doonaynaa oo xumaanta in la iska duugaanu doonaynaa xumaanta in la iska duugaanu doonaynaa oo inuu dalka yagu hagaagaanu doonaynaa inuu dalka yagu hagaa ugu dambeyntii waxaan halkan uga mahad celinayaa ururka raas casayr kulmiye oo iyagu suurtageliyay inay shirkan qabtaan oo ay isugu keenaaneen bulshada gobolka qeybaheeda kala duwan weliba intii ugu muhiimsanayd taas oo ay macnaheedu tahay sidii wax loogu qaban lahaa gobolka guud ahaan iyo gaar ahaanba cusbitaalka gobolka ku yaala caasimada gobolka ee Caluule oo isagu burbursan sidii loo horumarin lahaa iyo weliba qeybaha kale oo arrimaha bulshada iyaguna gaabiska ka jiro aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ururka raas casayr kulmiye oo hawsha xil iska saaray dadaalkeedana ugu jira
mahadi ha ka gaarto baan leeyahay. waxaan kaleeto u mahad celinayaa iyaguna dhalinyarada ay soo gaarsiiyey sawiradan quruxda badan iyo fiidiyoyadan oo iyaguna hawsha geliyey inay soo duubaan oo ay soo gaarsiiyey.